waagii hore dadku inta aysan bilaabin isticmaalka lacagaha ka hor ma aysan jirin dad shaqo la'aan ah. Dadka oo dhan si isku wada mid ah ayay u xamaalan jireen, mana jirin wax cadaalad la'aan ah sida maanta. Qof marka uu in badan faa'iidayo in midka kalena in yar uu faa'iido. Xilligaasi dadka dhexdoodu waxaa ka jiri jiray sistamka hadiyadda. qof haddii uusan helin waxa uu doonayo ama haddii uu la kulmo khasaare, dadka ayaa u soo gurman jiray. Mujaadalada nolosha ee xilligaa jirtayna waxay ku dhisneed dadku sida ay u heli karaan wax ay ku noolaadaan. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa taariikhda lacagta iyo sida nolosha bani'aadamku ay u beddeshay. Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad muuqaalada caynkani oo kale ay ku cajabgeliyaan si aan kugu soo badino lagsaar, mahadsanid. Lacagtu waa shayga keliya ee maanta nolosha ay ku dhisan tahay. Xitaa lacagtu fahamka maanta marka loo fiiriyo waa mid ka qiimo badan bani'aadamka noloshiisa. Lacaguhu waa kuwa sababa colaadda, waana kuwa sidoo kale nabadda iyo barwaaqada keeni kara. Xitaa lacagtu dadku waxa ay ku qasbi kartaa in sharaftoodii iyo diintoodii ay bedeshtaan. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, lacagtu maxaa ka duway waraaqadaha kale oo awood ay u yeelatay? Dabcan su'aashani jawaabteeda si kastoo aysan u fududayn, haddana waxa ay ku qarsan tahay bolitikada lacagta ay ku dhisan tahay. Miilaadiyada ka hor, dadku inta aysan bilaabin isticmaalka lacagaha, sistamka ay u noolaayeen marka maanta loo fiiriyo ma jirin wax dagaalo ah, abaaro iyo gaajo darteedii qof u dhintay. Dadku xilligaa waxa ay haysteen motivation ay ku shaqeeyaan, hamigoodiina dadka ma uusan ahayn in taajir ay noqdaan. Qowmiyaduhu iyaga ayaa wax beeran jiray, sidoo kale iyaga ayaa wax ugaarsan jiray. Noloshoodiina wixii gacantoodii ay soo gaarto ayay ku dhisnayd. Xaaladani problemka ugu weyn ee jiray ayaa waxa uu ahaa sida economy dadka dhexdoodii ay u samayn lahaayeen. Waayo qof walba ma uu haysan karo wax walba ee nolosha loo baahan yahay. Tusaale, qof marka uu digir ama qara uu beerto, qof kale oo beeraley ah ayaa waxa uu u baahan karaa tufaax ama cambo inuu helo. Maadaama dhammaan geedaha qofka uusan beeran karin, waddada keliya ee economiga uu ku socday waxa uu ahaa in qof walba shayga uu haayo inuu ugaga beddeshto qof kale. Tanina dhinac waxa ay lahayd problemyo sida mararka qaarkood waxyaabaha la isku beddelayo inaysan ahayn waxyaabo isku qiimo ah ama aanan isku dhigmin. qof walbana qadarka waxa uu haysto ayuu bixin jiray. Intaa oo kaliya kuma koobna, marmar waxaa dhici jirtay dadku inaysan hayn wax ay wax ku bedeshtaan. Xaaladaasina qofka deen ayuu ka soo qaadan jiray qof kale. Deentuna waa shay qofka marka uu wax helo ama wax uu kasbado qofka ayuu u keeni jiray. Maadaama khiyaano ama tuugnimo aysan jirin, dadku si sahal ah ayay isku aamini jireen. Nidaamkani wax isku bedelidana waxa uu lahaa problemyo badan oo ay ka mid yihiin. Tusaale, qof ayaa waxa uu haystaa caano aad u badan, waxa uuna doonayaa caanihiisii kaba inuu ku soo bedeshto, balse qofka kabaha haya uma uu baahna wax caano ah. Sidaas darteeda xaaladani dadku aad ayay u dhibi jirtay, waana waxa sababay in dadku meel ay isku imaadaan sida suuq oo kale. Qofka inta uu keeno waxa uu hayo ayuu suuqa ku wareegi jiray ilaa uu ka helo shayga uu hayo qof u baahan. Problemkani si looga hortago, dadku waxa ay bilaabeen xilliga in ay wax keedsadaan si haddii shay looga baahdaba si degdeg ah ay ku bixiyaan, balse keedinta wax walbana dhib ayay lahayd. Tusaale, qof in caano uu keediyo ama in qof yaanyo tiro badan uu keediyo, muddo kadib shayga waxa uu noqonayaa mid bololay oo aanan loo baahnayn. Xaaladani dhibka badan ee dhaqaaluhu, dadku marka ay ku sugnaayeen waxaa la bilaabay shay dadka oo dhan ay isku wada waafaqsan yihiin in la wada aqbalo, si loo ciribtiro in dadku ay waayaan wixii ay u baahan yihiin. Dadkii ugu horey ee bilaabay isticmaalka shayga, si kastoo mawduuc dood u furan uu yahay, haddana imbaratoorkii Lydia ayaa lagu sheegaa, waana dhul maanta Turkiga ku yaala. Boqorkii halkaa ku noolaa ayaa waxa uu bilaabay in ashyaa aanan la heli karin in dushoodii waxyaabo symbolic ah uu ku dul sabiro. Qofkii shaygani haystana waxa uu awood u leeyahay booska wax beddelashada in shaygani uu ku soo qaato. Balse xilliganina fikirkani dadka oo dhan ma uusan ahayn mid adduunka oo dhan la isku wada waafaqsan yahay, balse dadka qaar waxa ay ku dadaali jiraan si ay u kasbadaan shay walba ee nolosha ay u baahan yihiin. Waddada keliya ee shay walba ay ku kasban karaanna waa in qofku uu helaa dad badan oo u shaqeeya. Tanina dadka qaarkood waxa ay ku riixi jirtay in carruur badan ay dhalaan ama in addoomo waddamo kala duwan ay ka soo qabsadaan, khaasatan waddamada Afrika.
waana sababta waagii hore is-addoonsigu lacag uu ugu dhisnaa. Keliya dadku waxaa loo addoonsan jiray in ay shaqeeyaan daafaha adduunka oo dhanna suuqyo addoommada lagu iibiyey ayaa soo baxay. Faa'iidada addoommada lagu qabayna waxa ay ahayd inay yihiin shaqaale aanan waxba kaaga baahnayn. Arrintu sida ay sidaa u ahayd qarniyo kadib, dadka Jaynuhu waxa ay bilaabeen inay isticmaalaan lacago waraaqad ka kooban. Intaa kadibna dadku si tartiib waxa ay bilaabeen si lacagahan ay u xakameeyaan meel loogu soo hagaago in loo sameeyo sida bangiga dhexe. Balse waraaqadahani dadka Jaynuhu ay samaysteen qoomiyadaha kale sidee ayay agtooda qiimo ugu yeelan kartaa, waxa ay ahayd problem aad u weyn. Xitaa waxaa la soo wariyaa taariikhda ka hor qofka Soomaaliga markuu u soo martiyo qof kale oo Soomaaliya hadiyad ahaan waxa uu u siin jiray dahabka qofka uu wato. Xilliga dahabkuna dadka agtoodii qiimo aad u weyn ayuu ka lahaa, wayna fududeed xilliga marka maanta loo fiiriyay in dadku dahab ay helaan. Ganacsiyada qoomiyadaha kale dadku ay la sameynayeenna waxa uu ku dhisnaa nidaamka wax isku beddelidda, ama in qofka wax qiimo leh sida dahabka oo kale inuu wax ku beddeshto. Marka bani'aadamka uu bilaabay in qoraal uu adeegsadana waxaa dhaqaalaha loo dejiyey nidaam iyo qawaaniin. Qof walba waxa uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo, haddii uu qofka wax haystana in loo shaqeeyo. Shaqaaluhuna waddada keliya ee lagu abaalmarin karo waa in la siiyaa lacagta dowladdu ay soo saartay. Nidaamka waxbarashada, caafimaadka, shaqaalaysiinta ayaa soo baxay. Qofku intaa kadib waxa uu ku qasbanaaday sida maanta oo kale in qof kale uu u shaqeeyo, wixii qofka uu siiyana in waxbarasho ama caafimaad ama dukaamaysi qofka inuu ku bixiyo sida kapitaalizamka uu qabo. Gebi ahaanba waxaa la beddelay siyaasaddii wax isku beddelidda ee jiri jirtay. Waxa keliya ee dadku ay isdhaafsadaanna maadaama lacag waraaqad ah ay noqotay laazim, waxa ah in qofku kooxda taajiriinta ee wax haysataa uu ka mid noqdo, ama in qofka kooxda shaqaalayaasha uu ka mid noqdo. Wax intaa u dhaxeeyana ma ay jirto. Systemkani dadka qaarkii waxa uu ka dhigay mid taajiriin ah oo weliba sii dallaca, halka kuwa kalena addoomaysi casri ah oo shaqaalaysiin ah weli lagu hayo ilaa maanta. Bani'aadamka oo dhanna waxa uu u janjeeraa in mar walba uu helo wax cusub. Waddada keliya ee wax cusub lagu heli karo ama lagu beddelan karo maadaama waraaqad laga dhigay, qofku sannado badan waa inuu qof u shaqeeyaa si uu boos u iibsado. In dadku waraaqadda ay u soo cararaanna waa midda sababtay in dadka dhexdoodii colaad iyo dagaalo laga dhex abuuro. Qofkii haysta waraaqado badanna awood waxa uu leeyahay in dadka dhexdoodii wixii uu doonay inuu ka dhex samaysto. Siyaasadda lacagtuna casrigani waxay u muuqataa 20 sano kadib in reform iyo isbeddel lagu samayn doono. Mawduucanina waxaan kaga hadli doonaa mawduucyada kale ee soo socda haddii uu eebbe raali ka noqdo.